على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. in badan muxaadaradii aan islahaa inaan ka hadlo waxa iga qaatay walaalkay Dr. Saadiq oo igu horeeyay inkastoo aan isku raasudinahay haddaan ogaan lahaa ii hambeer ilaa xoogaa baash laakiin qadar Allah la shaafaca laakiin dhibaato madax haddaan kusoo celiyo wuxuu dhahay waa iska muraajacay noqonaysaa. hadafku aan isleeyahay ma aha in macluumaad badan iyo nadariyaad badan inaan sheegno ma aha hadafka. hadafka waxaa mawduuca ifiyo si markaa u ta'siiriyo masiirka ummadeeni socodkeedii iyo meesha ay rabto inay gaarto maraaxisha ay marayso in wax laga ta'siiriyo weliba wax weyn lagu dacmiyo. hadafku waa intaa ma rabno marka macluumaad cusub inaan isku biirno hadafka kaas maaha. aniga maadaama aan ahay macalin ilaa iyo dhowr iyo toban sannadood hadda macalinka ahay Itobori ayaa waxaan kala kulmay masaladan cadaaladda in badan ilmaha afkooda inay soo noqnoqonayso. waxaa dhahan kaas cadaalad waa kaas cadaalad maa cadaalad maa cadaalad waayo macalinkiisa isku leeyin cadaalad waa cadaalad maa cadaalad same kelimadaas ay dhibtay markaa maalin xisada aniga oo ku dhex jiraa layiri cadaalad saas oo kale mugtay yani waxay ku keeneen marka qaarkood ilmaha gacanta taagay macalinku wuxuu rabaa marka xoogaha inuu dhammeeyo jumladii inuu israaciyo raba marka uu jawaabayo ilaa iyo xad moogtahay. marka waxay u arkeen cadaalad darro inay tahay markii hore wiil kalaa u jawaabtay toos aniga ima jawaabin cadaalad darro haye dhinacan xoogaha dadka qaaditado dhinaca ka qaadi weysa cadaalad darro wiil haddaad siisida gabartii weysa cadaalad darro cadaalad darradii tirada ka badatay markaa xoogaha marka casharkii inta joojiyo waxaan ku eri horta cadaaladda maxay tabal ii sharxa. waxaa lihi waa sinaan in la sinaado. waxaan ku eri farahan usoo bixiya marka shanta farood saasa bal fiiri cadaalad beemsho cadaalada waa la isku noqday way kala baxeen ilaa ay 3 group ay u kala baxeen. group waxay yidhaahdeen ma ogin oo kala ma garanayno waa problem. kuwa waxay dhaheen cadaalad darro toos saas kuwana waxay dhaheen cadaalad waa ila eg tahay laakiin xoogaa mala ii sheekiin tan oo kale. waxaan ku yiri marka cadaaladda mafhuum waxaa laga siiyey aad u gaar yani mafhuumka reer galbeedka oo cadaaladda sheekh ayaa ta'siiriyey muqaaranaad badan iyo falsafadoodii raadka ay ku leedahay meeshay kasoo hormartay. waxaa sheekha ka sheekeeyey Dr. Saadiq marka waxay ku beesi garaysan tahay sinaan waxaa la yidhaahdo laakiin mafhuumka islaam marka usoo noqotid iyo waaqaca sinaan keliya ma laga wado. mafaahiimteedii qaar ka mid ah ayaa waxaa laga wada sinaan laakiin cadaalad oo dhan sinaan maaha. yani sida farahan aan ku weri mogtahay marka waxaan ku weri marka kan miskiinka inuu meesha fadhiyo keligiisii cadaalad darro miya tan maxaa loo yeelaya tan maxay ugu dheer tahay labadana waxay u siman yihiin haye tan dhaxday ku jirtaa kan gees kala mariyey ka warama. marka waxay ka fikiraya kulli hadday sinaan lahaayeen oo kulli sida fariiradii oo kale hadday noqon lahaayeen ama kulli fardheerta ama kulli sul oo kale hadday noqon lahaayeen sida dareemi lahaydeen waxay dhaheen ma fiicnaan lahayn. waxay foolxumay noqon lahayd way adkaanayd xataa qalbigeed inaad qabatid xataa
iskoolkii waxbarashada baad kaa leedahay marka waxaan ku yiri cadaaladda marka ma aha mafhuumkeeda mar walba sinaan keliya sida hadda markaa reer galbeedka markay ka sheekeynayaan niman iyo naago marka la leeyahay sinaantoodii yani waxaa jiro laba eray ay adeegsadaan meeshaan ma garanay laakiin meesheeni waxay ahaan sinaan iyo simid saasay dhahaan waa laba eray oo laba macnay kala bixinaya marka la leeyahay sinaan in adiga ku qanacsan tahay ragga dumarka inay isku mid yihiin kulli inay isku xaq yihiin waxba kala dheeraan qofna qof ka qiimo badnaan waa ina saa u aaminsan tahay sinaana laa laakiin simid waxaa dhahaa nadariyada keliya kuma fila ah haddii markaa meeshii arboorka wiil la dhigo gabar waa la ardhiga waa simid waa haddii ay jiraan weligooda ma gaarin nadariyadaas inay fuliyaan laakiin mar walba laga hadla niqaashaadka marka kuwan feministiga la yidhaahdo dhaqdhaqaaqan haweenka kuwa la yidhaahdo ay xoog waxay u saaraan marka waxay dhaheen sinaadka la sheegaya run maaha ilaa simid oo laga helo in dadka yani fursado ay helaan haddii dakhaatiirta ay noqdaan yani suudan ilaa iyo 25,000 marka waxaa rabaa gabdhaha inayna ka yaraan baarlamaanka hadday sidaa ku noqdaan nimanka doorasho xataa hadday ku yimaadiin waxaa leeyahay waa in la simaa waa in la khasbiya sinaanta leeyahay naturkii ayaa laga tilaabsanaya dimuqraadiyada laga tilaabsanaya yani traditionki jiray si loo gaaro in la simo marka fiiri cadaaladii baa laga tegaya si cadaalad loo gaaro cadaalad daraa la sameynaya marka anigu waa sheeg karaa ilmaha maadaama bi-adan ay kusoo koreen mugtahay marka mafhuumka marka cadaaladda wuxuu yahay xaqa islaamka xaqa in la dhigo meeshu ku habooye arrin walba meeshii ku habboontahay in la dhigo ayaa cadaalada dhaha yani dareenkaas oo kale waxaa dareemay nebi yacquub calayhi salaam wiilashiisii qur-aanka ka sheekiyey qisadii dheeraad nebi yuusuf calayhi salaam laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatu lisaa'iliin id qaaluu layuusufu wa akuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusbatu annagoo ka badan ayaa aabaheen wuxuu jecel yahay wiilkan keliya iyo walaalkiisu iskubaha marka waxaanu arkaynaa fii dalaali mubiin inuu yahay inuu aad u khaldan yahay u arkeena marka waxay dareemayaan cadaalad darro weyn inuu ku sameynaya aabahooda maadaama uu wiilkan uu soo dhaweysanayo marka ayaga ma fiirinaynin duruuf kale oo la xiriirta arrintaas ma fiirinayn aada u yeeryahay yaraantiisa waxaa keenaysaa in oo ihtimaam gooniha la sii siiyo khadamaad dheeraada in la siiyo marka ilmaha ma garan karaa duruufta keentay adigana wiilka mar walba soo dhaweysanaysa waxay u arkayaan keliya sidaa wiilka isugu dhijanaysid aniga ma kaa helaya taas ihtimaamka ay waqtigaa siinaysa aniga ma siinaysa marka cadaalad darra u arkeenaa taasoo saasay dareemeen dareenkaas marka dadka wiilasha dhalinyarada ah iyo caruurta keliya kuma kooban waxaa fiiriyey siirada nebiga sal lla alay slam ee kamid ah waxaa arkay qisadii maxaa ku rahdaa qaswadii xuneyn kadib iyo fatxa maka marka qanaa-imtii waxaa layidhi inteedu badan waxaa qaatay reer maka marka reer madiina waxay dareemeen xogaha dareen ah cadaalad darro oo kale saasbafir shahaadadoodu waxaa ku jirto laa ilaha illa allahu muxamadun rasuulullah muxamed rasuulka alle inuu yahay maca dalika waxay dareemeen cadaalad darro waxay yidhaahdeen waan soo dhaweysanay oo saas oo kale annaga saa u samaynay laakiin markii uu
waddankiisu usoo laabtay reerkiisu wax walba siiyo oo kale saasay dhahay. Nebiga sal lla ly slam shuuqshuuqdii waxaa ka maqlay suuqa, markaasuu xorriyay inuu hubsado. Markaas ayaa wuxuu yidhi ansaarta amiirkoodu ayuu u yeertay sala allahu alay wasalam. Sacad ibnu Mucaadi raggii u yeeray, waa asxaabta ragga ugu waaweyn. Markaasu wuxuu dhahay waa maxay waxaan aan ka maqlay ansaarta inay saaleeyihiin. wuxuu yidhi yaa rasuulallah way jirtaa saasaa dadka afka ku hayay. Markaas wuxuu yidhi sala alla alay slam adiga ka war adiga lafahantaada adiga sheekada ku jirtaa. wuxuu yidhi reerkaygaa la dilaa, aniga reerkayga ma ka mid ahayo. marka sheekada waa xulustan soo maa. rasuulku sal lla alay slam marka muxuu sameeyey ma dhihin marka wax walba gacmaha ka baxeen oo dadkii waa halaabeen oo saas faatixa ma dhihin. habaar lacnad waxaa ma simi. waxaa duruuf bani aadam waa nafsiyaad iyo mashaacida la xiriirto. insaan bii-ada ayaa ta'fiiriso, wuxuu soo arkay iyo khibradii ayaa ka tambadiso. marka dadka cudurdaar waa in la siiyaa marka qaarkood. ma lagamana wado dadku marka yidhahdaan cadaalad ma jirto in adiga lagu tuhmayo. yani wadaadadeeni qayb ka mid marka qaarkood khaladaadka aynu samayno waxaa ka mid yani haddii la yidhahdo wadaadka waa khaldan yahay waxaa ka dhigaan islaamka khaldan oo kale. dareenkaasay dareemayaan. ya sunnaduu ka hadlaya sunnada hala raaco sunnada ha raaco sunnadii nabiga saas waa muhim waayo. markaasaa la leeyahay meesha loo kaca waxaa leeyahay sunnada horta adiga soo daba. markaas dadkii waxaa ka dhigaa sunnadii inay diideen. waxaa laga yaaba usluubkaada in muxuu yahay dadkiina adiga ku necebin. marka weel dadka ay ka sasayaan haddaa cunto ugu ridid ma qaadanayaan. mugta sheekhaad sheekeynayo wuxuu dhahay nafsiyaadka dadka yani waa in la ilaaliya oo dhay mar walba. markaas wuxuu dhahay haddaad jalakumullah baasha saxanka musqusha lagu fariisto haddii markaas warshada laga keenay oo dadka dhan ay arkayaan oo nadiifinay tahay oo weliba lasii dhaqo oo dadka hortoodii wax walba oo antibacteria wax kasta ugu sameeyo oo marka beriis haddaa ugu soo shubtid ka warma maxaa dhahaan ihaanadii ugu xumeeda ku samaysay. masalada maaha keliya nadiif waa quruxsan yahay dahaba sidii musqul oo kale haddii loo sameeyey biswaa ruutiya waxaa soo samaysay doofaar oo kale. markaasa hilibaa ka buuxisay oo xalaal ah. korka waxaa ka saartay codaa asoo farsamaysay waxaa leeyahay kusoo dhowow. ninkaan muxuu kuu dhahay sharafteydu maaha kuu dhahay. marka usluubta iyo dadka nafsiyaadooda in la ilaaliyo inay muhiim tahay ayaa rasuulka sal lla ly slam siiradiisii ka fahmaynaa waa. marka calayhi salaatu salaam wuxuu sameeyey wuxuu yihi al ansaar hala ii jamciyo hala ii keeno. ansaartaa la keenay waa lasoo ururiyey. markaasuu wuxuu yihi horta nafsiyaadkoodii waxay dareemayeen buu cilaajiyey. horta waa in la xaliyaa meesha dadka ay joogaan ka bilow. horta dadka meel saraawo maan waxayna fahmi karin cuquushoodii qaadi karin ayna khibrad u lahayn. yani haddaa ugu bilowday waxay u dhowday inay kaa qaadato. marka wuxuu ugu bilaabay sal lla alay slam meeshii ay dareemeen ay joogeen. xaggey joogeen? wuxuu yidhi haddaad rabtaan waxaad dhihi lahaydeen waan soo dhaweynay. waa dhahdeen ma dhihin beriya waa dhahdeen saas qalad waay mana sheegasho waa ma dhihin. haddaad doontaan waxaad dhihi lahaydeen wili saa iyo saa anagaa soo dhaweynay anagaa saa u samayna anagaa saa u samayna xaqay aanayd taas haddaad dhihi lahaydeen wili xaq waayo kar waayo. horta xaqiyu meesha dhigay waxay dareemayeen buu u qaray sala alla alay salam. laakiin cadaaladda la sheegaya waa isku celcelin soo maa. miisaan isugu yahayba mararka qaarkood waxaa fudud in miisaanku dhinaca u bato ma dhinaca u bato. marka macyaarka waa waxaa lagu karto miisaanka aragtid
معيار العاف 2 كيلو 5 كيلو أي بالانسيا إن إسكو ولاسكا كان إن إسكو من نقاط عن سهل ما مر وأساس مرة وسعنا مرة النبي أساسا مسوعي ميزانك وحبها لكن ولي سو ما هين ولي أذنك ضد كلا دارسان وأنيا تنادي إلهي سو أذنك مبذوبين الحق الله ورسوله أمن وكفتن سو ما هين ضد باريسان وأنيا تنادي إلهي سو يقومها نولن حق سو ساس ما هين دوا وحبها سو سام دوا وحبها مركي وحو البقرتين أي رسول صلى الله عليه وسلم مركا لنا عيكنا وحي تبنيا وحي محوك علاجي النبي صلى الله عليه وسلم وحوك علاجي وعير إن وحو الشاقي التصرف كبوسمي حولها يمسي غير مكان يسبالها يسوء فكري وشاقي كأقنعيها قنعت مهمة مركا أنا حق waxaan waa xaq inaan ilaahay waxay mumkin dad waxay taayaan sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka dareenkooda in la ilaaliyo yani marka nabiga zawjadiisa Safiya markay la socotay oo arkay laba asxaabiga marka xoolaha socodka dheereeya markaasuu yiri ala rislikuma innaha Safiya wa xaaskiga Safiya ugaad tartiibtiin مركز واحد يا سبحان الله رسول الله سور سجل معها يعني أنا أبي كتب وأوجه يقولنا يتومين لكن وحكى أوجه شيطان إنه وصع ضدك ديكوده جيركوده وكوس وسيك ومجرى الدم زاد ديك جيرك وصع يعني وضنها ديك وحكوه وريتها يعني دقيقة دي إلى تطلعتني كبلا intaas oo jar ayuu waswaasku gelin karaa oo si dhaqsi ah marka waxaa ka baqay qalbigeena inuu wax ku rido shaki yar xataa shakigaas yar u diidayna iska saarto inuu ka soo raaco mowqifka xataa isaga hadda waxba ka soo gaarin ayaga wax ka soo gaarayso maaha marka wuxuu rabaa inuu sifeeyo taas marka lafteeda cadaaladda ay ka mid tahay markuu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam wuxuu yiri dadka wuxuu yiri haddayna ahaan lahayn weli muhaajiriin hijro haddayna jiri lahayn weli qof waxaan ahaan lahaa oo ansaarta ka mid ah lawla alhijratu lakuntu imra'an min al-ansaar dadka hadday wadama ay qaadi lahaayeen ansaar wadda kale hadday mari lahaayeen waddada ansaartan mari lahaayeen dadka wuxuu yiri waa marada sare weli laakiin ansaarta waa maradii hoose weli saasay intiin weli marka feere waa xogaha madaxa ugu weynay sooma camaamad u saar aad u farxay markaasuu u sidaa wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam soo raali kama noqonaysiin weli dadka kale reer makay inay iska qaataan weli bishaati walbaciiri إني يقولون الآذان أذنك وتذهبون أنتم برسول الله إلى دياركم أذنك أنا رسولك الله إن قريه هنا أقارتان سوف بجعلين مركز الأويين فرحة الأويين أي واحد رضينا نبي الواقع يحرك مبدلين جيبنا مسوى علمين ما قيبين 4.5 وحاول بدهين وحاول سمين لكن ضدك والخنع marka nafsiyaadka dadka in la macaalijiyo aad iyo aad bay muhiim u tahay marka mafhuumka cadaaladda islaamka waxaa ka mid ah ma aha shay akhlaaqi ah qofka sida runtaa la sheegaya oo kale iyo qofka inuu noqdo qof xushmad leh oo ixtiraam leh iyo cadaaladda inuu sameeyo saas oo kale maaha cadaaladda وواح لأجل إلهي السماوات إلى أرض وإلهي كتاب والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ميزان كاس عدالة إلا سمايا وأرلغة سماوات الكون كوكتاغيها حدين الوايو بالك سيحطوكم نور كما سورتوبي سوى حياتها. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. حتى يعني طاقتك والسونامي ميلكستا يتباشى تتكلموها لاي يقول جريرك وأوحى لحرير عدالة هذا سمو جديد مركا عدالة هذا ما كليه كرسي لسكوح حلويني أيوه حوال برلمان وكالبطي معها كليه عدالة هذا وحي سامان حتى قوم كاسوء بسيه توازن كيس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بل وحن السلطان أي كسي دينيان يعني هوذ إن يريان بالحوضاء ضدك إن أقونيها كوحة شيئا بل إن الإنسان ضدك إنه سياسيين تيقوا عقل ضدك قالوا بل عقلي إن أصول نظام علمي إن أصول نظام أيان الرابع مركا وحي السمايان رد فعل كوني أي إلهي كتسا سبحانه وتعالى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. مركا وشيء لأجل يسي إلهي أصدر الرسوشا وكتبنا أسودجي لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وعزد الله سبحانه وتعالى ليقوم الناس بالقسط. رسوشا هي كتبت وعلى زدجي هي ميزان الله ميزان كمحوية كتبها قسط رسوشا كتبت أصل شرح ميزان كمحوية واحدة بحسن كتبت إله محوية ميزان كوا منهج كوا أو منهج كعدالة كل إسلام ورسوشا ضدك عباران أي كتبت إلهي كسوة إلا إلهي هو ميزان كمكان مفهوم كمان كميزان كونه يعني ومنهج أو متكاملة أمسترة أو دينا عوار برك مالك الثائن كفي الله ومسالته ميزان كاس إلا إلهي وعدالتي ولا إلهي حدي ميزان كاس لاكتو وظلمي ما مركا ظلمي ما مركا وحكرا وحكس يعني قفك نفتي سظلمك قفك نظلمك قفك هر عدالته حال جاري مفهوم كإسلام كحالي قفك وحو ظلمك إلهي سبحانه وتعالى إلهي ميانا ظلمك لكن حقي إلهي هذا ملك يدعي إلهي حقي صدفتي وظلمي وار مثلا سيدا عن مقالي شركي وقالي إن الشرك لظلم عظيم. مفهوم كامل عدالة دوحي تاي وحرى عدالة دينا نقطه وحلا إلهي وحقفك سوء تايهي وقميهي إن الحقيقي معها كلية أخلاق عامة سيدانيري وواحد كفي عن بلشدة إنها لغو أحفافي وواحد أنتودي نوران بدع كريم وواحد أنتودي إيمان كيني أصيح كريم مكا لذلك قفر وإرقما عدالة سيدا لو جاربا إلهي وحيري يا أيها الذين آمنوا كونوا نقضا قوامين وقتايا بالقسط عدالة شهداء إلى مرخاتكتهم لله إله درادش عيدك الله وحيثوها من كونوا لله شهداء بالقسط كونوا قوامين لله أما بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم مركوا مفهوم بالعرب ضدكوا حياني زين عدالة وحواي ولا شيء لا خوف أو كره هذه مركزين عصد حالة
لو إسحاق هذا عدالة سميسية عدالة الدعوة لكن نفترض إن حقي إسكسور قادم وحقي ضد كان يستنبحسه وعدالة أريد إن أشكو خبتير أشكو لازم تدرك أنت بانكم كلها سنة ما كان مفهوم كعدالة الإسلام بقول وياي وقت نفتي إنه عدالة الصميم ضدك كلام إنه عدالة والصميم عدالة إنه أقومه أو الدفاع أو ننعيد أمره قفك عادلك نترول من نقطة عدالة نترول كما نقول كرتين أنا عادلة وسيرت حبا حيما بكرت وإن رأي أقوى شطار طول بقطع رأي ونقول هذا ده واحد يعني أهمها سعودات كلام يسمى قبصان واحد إياه قبصان يعني محلي أرتا وحاجة وأهل يجوين وليه مكورة أنا إيمان تعالى ويجوين تاني وحاول سوداني حجة ما له فائدة ما له سوء إنسان لو وحول إنسان يعني مجال كيجي بالمعركة أما الله هو إن عدالة كهرباء وايو عدالة ضد جونية كهرباء ميل جونية قوم جونية ولا هلا ما إلهي وحليه وإن مخاطك نقطة عدالة وين وقمتها إلهي درادس وين متاجتها يا أيها الذين آمنوا هداته المؤمنين يعني إيمانك يا روح اعدلوا هو أقرب للتقوى تقوى الأشياء ما هي ذلك كتحت حديث تقوى الأشياء إلى مرخاتك النقطة واحد صعودة حق الاتفاع لي قابل النقطة وعليكم مرخاتي في التدوال وحد إيتري يقول له وحد إيتري انصر أخاك ظالما أو مظلوما وراك يكرر تهرب وكركار الإجري النبي صلى الله عليه وسلم إسلام تي عبارة دي يسوعي لكن هو مفهوم كراه يعني واحد يعني واي إسلام كتب وفهمي قفك وراك هي إنه كركار ممكن لا يكرتريه لكن حتى يسوي كرتريه محاس لا هو كركار ممكن سواح الله يكرترك علنيسا تصع كركار كيسا marka mafhuumka cadaalad islaamku waxa waa qof kaafo iyo qof ku dhow saaxiibka iyo cadawga ka isku diinta aad tihiin gaalka iyo qaraabo qofka tihiin xitaa naftaada waa cadaalad samaysaa marka taas ma dhacayso mafhuumka soo kale oo dadka dhan inay u samaysid waxa waa mafhuumka islaamka qahla keliya أبعاد العليا الروحية أبعاد العليا وحدثية حدود الجغرافية يعني إنجليز كي رقابات وكرة عدالة دوري قفك الشخصية حتى حقوق الإنسان كدكتور كهلاي قفك الشخصية وعليا حقوق مدنية وليا إن قرب وليا أساس وكرة لكن وحكو حرام حدود nationality isku xarta Ingiriis haduu yahay waa loo garaabaya kartaas uu leeyahay xuquuqdaas uu leeyahay haduu yahay qof ka baxsan xuduud Ingiriiska xaq uma laha marka dawladda wada shacabka Ingiriiska waajib kuma inay u gargaaraan ama xuquuqul insaankiisa inay ilaaliyaan marka nationalism iyo maxaa ku leedahay مسافة أو جغرافيا أيوم كحرية لكن كان إسلام كان أدب بلارية قف كستو سامية صفة كساحة ملك ساجو مركي لطورتي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خلافة لطورتي خطبتي سجور رزي وحي هاي القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق كينا قوي أو أكتيد ضعيف كيهي إلا أن تسوق على حق ضدك إلا أن تسوق جريد ضعيف كان أكتيدي وحكيهي قف أود بها إلا أن حقي سوق على
marka cadaaladda saas u ballaaran waxaa kaloo ka arkayna oo kale isla cumar radiallahu canhu qisadii qibdiga ninkii egyptianka ah iyo camr ibn alcaas waxaa ninkii xukumayay masr waali masr marka wiil uu dhalay camr ibn alcaas ayaa waxaa tartamay iyo mid kaloo qibdiga marka tartankii fardaha lagu tartamayay waxaa hayay ninkii qibdiga markaasuu xanaaqay isla weyniya qaaday markaasuu u haystay uu ku uftaalay markaasuu yiri khudha wa ana ibnu lakramiin iga qaadi wiri aniga dadkii sharafta lahaa wiilkooda ahay ninkii qibdiga wuxuu ogaa in ay ka jirto cadaalad islaam xukunka islaamka marka waxaa la yidhi ilaa iyo madiino ayuu safar ugu tegay amiir lmu'miniin cumar markaasuu u sheegtay arrintaa dhacday cumar wuxuu yidhi ibn alcaas iyo wiilkiis labadooda halay keeno ninkan qibdiga gaal waa fiiraya kaasna waa saxaabi macal wiilkiisa waa muslimiin waaligii muslimiinta ah bisar haystay waa gafanarkii waa halay keeno weli markaas camr ibn alcaas wuxuu ku yidhi wiilkiisa maada axdasta yaa bunaya weli maxaad samaysay weli cumar waxa uu arrintaa uu igu yeeray ariyamaa weli maxaad samaysay yacni maba fahamsanaba arrintaas inay tahayba tan uu sameeyey waxaa ma taraysani weli aniga waa yaabanay markaasuu arkay ninkii qibdiga saddexdoodii meeshaa la soo fariisiiyey maxkamaddii markaasaa wuxuu yidhi markuu kala hubsaday uu ogaaday ayaa markaas yiri cumar wuxuu yidhi usha qabsi weli qibdiyow waxaa la dhacdaa weli ninkan ku dilay weli intaa ulug u uftay markuu ka dhamaystay wuxuu yidhi ibn alcaas ku dhufo markaa ninkii qibdiga wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin xaqiiqi waa qaatay qofkii dilay waa ka argostay wax kaloo ziyaadaa marooy markaasuu cumar radiallahu canhu wuxuu ku dhahay camr ibn caas la hadlay waayo ninkan awooddaasi oo badan oo kibirkaa iyo isla weynadaasi intuu ka helay aabihiisu ka helay sooma aabihiisna waa masibkan oo loo dhiibay amaanadaasu ku helay markaasuu yidhi mata istacbadtum annaasa waqad waladathum ummahatum axraam goormaa dadka adoonsateen weli iyadoo ay tahay in ay ku dhasheen xor hooyadoodiiba ayuu xoraa inay dhasheen goormaa dadka cabiidsateen marka intaa meeshaa yar ayaa ka fahmaysaa muslimiinta cadaalad say u fahmaysanaayeen isla amiir lmu'miniin cumar sheekadiisii waxaa ku jirtay qisadii aadka mashhuurka u ahayd nin oo uu soo dirsaday qaysar oo arkihiisa ahaa ayaa waxaa yimid layidhi madiina waa caasimadda dowladda islaamka marka wuxuu rabaa qaa'idkii muslimiinta waa cumar markay maqlaan marka curuushtooda ayaa gelimaysay haybadiisay markaas wuxuu rabay inuu arko majaalistii qaysar iyo kisra say ahaan jirtay iyo xuraastii wixii askartii waxba ma arkin sar weyna ma arkin markaas wuxuu yidhi cumar haliigii yacni tilmaanta kalse u dhiibaysa ayaa wuxuu soo dul istaagay geed hoostiisa isagoo iska harsanayo oo hurdaayo dhulku iska firaashtay oo iska hurdaayo markaasuu yidhi kan miya cumar ah markaasuu dul istaagay cumar ninkii oo dul taagay buu indhaha ku furay markaasuu la hadlay wuxuu yidhi cadilta wuli cadaalada samaysay fa aminta markaas waxaa suuri amaan naftaada markaasa wuxuu yidhi fanimta xakamta waad xukumtay facadalta xukunkaada cadaalad ku samaysay
فأمنت أمام هذا الشيء فنمت مركز بناك سكولتي وكأنه حاليا بين الرأي يروح مذاهب وبناك سوسعنس يعني سود إنه حالها علي إن رئيس الوزراء وزيريا شيء لوصم يبورك بعدما مكلت لي وزيرة المهدي بدا أنا لي السوق أيضا إسكا مرسا يعني بدي كدلي marka waxa leeyahay borgaan loo sameeyo laakiin sida caadiga banaankooda iska maray marka maxaa keenaya waa dadka ayaga shaqadoodii wala tabkhasu an-nas ashyaa dadku wuxuu u daay wuxuu waa maxay siyaasadooda xukunkooda ay hayso xukuma dhaqaalahooda u daay dadka oo suuqooda u dhaaf dadka xurumaadkooda iyo guryahooda iyo hantidooda u daay haddii la ammaan geliyo ammaanka uu iska imaanaya marka uuna sahlanaanaya in la sugo waayahay majaalaadka meelaha cadaaladda maxay tahay mafhuumka cadaalad dadka ay fahamsan yihiin waxa waaye cadaalad marka la yidhaahdo isla markii maskaxdoodu waxay qabataa barlamaan iyo awood la qaybsaday iyo wax soo kale meeshaas laakiin cadaaladda islaamka waxay saamaysaa xitaa in waxdaaniyada ilaahay la qiro waa qimat alcadaala cadaalad meesha ku sarrayso qofka inkaray ilaahay wujuudkiisii iyo nicamkiisii ku kufriy caadil marba noqon karo cadaaladdiis waxay noqonaysaa cadaalad iska satixa oo shakli ah oo formal ay noqon shahida allahu annahu laa ilaha illaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqisqi oo waxay ku taagan yihiin intaas oo ay markhaati ku furaan bilqisqi si cadaalad iyo gar ah ay waxay u qiraan ilaahay inuu waaxid yahay subxaana wa tacaala cadaaladda waxay saameynaysaa majaalkeedu wuxuu yahay in la oofiyo cahdiga wacdiga ammaanada in la guto in allaha yamurukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وفاء markay naftiisa tahay yani qaanuunkii waa adeegsanayaa waxay cadaaladda jirtay naftiisa istiifaa intii xaqiisa ahayd kama tanaasula laakiin markay noqoto waajibaad inuu guto xoolaha waidaa kaaluuhu markay noqoto inay dadka xuquuqdooda inay siiyaan oo inay u cabiraan in ay saas oo kale yukhsiruuna way kala reebaan way khasaariyaan alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuuna liyawmin cadiim yawma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin wuxuu ku xiray ilaahay subxaana wa tacaala la kulankiisa maalinta qiyaama ee xisaabtiisa soo saariduu ku xiray cadaaladdaas yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تجعلوا يعني محايد آية الكلام ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم مركا إن عهد جاء بلغتا أمانة إن الله استعمال إن تذكر الواحد إن قفوا مرخاتي كنقضوا وحاولوا أركوا وأقول إليه إنكوا عمل فروح وياي وحكمتها عدالة المسلمين مكا وأولو العلم قائما بالقسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سيأتتك كلا فرطان مرخاتي أي إلهي وحيدين كردقين شهداء على الناس
أمة وسطا أمة وسطية لغة المامة ومنهج إسلامك ونمست نوع وسطية معها ميل ونحيسو خيرك إشارك حق باطل كدهدودي ميل أحعال ميشا سماها ميشا أحعال لماذا حال شيئية وقمة العدل مركي أن لمكي أيرادين النبي صلى الله عليه وسلم قولي سمك صوب وغدان أفرتي قف ما يصدح هذه قف مركا واحد ربين وقادان النبي صلى الله عليه وسلم عبادات كيشي تعبد كيشي ربين وقادان مركي لو يشركي يعني كأنهم تقالوها واحد مودة وحواء إلى ليرات مركاش قف بمبال وكذي مذوعي أنيا يعني مركز السيف فصرتين يعني نوي يوم جابي بيش يقول ما أساس هبين كده نسوي ذا الري عم مركز واحد صوت نوي جا دبي سيورة كان ضموا إلهي واقع كضعف يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مركز ومبا عن إنه يسري وكرم مركز نبي وعيري أنيا صباح عمري واحد سوجي ذي أنت نوعي إلا أن قدمته هبين مولو مسعانا هاي يا متكر وعيري أنا مكور سنايو معالي كور يعفور يوحاقولي مشغول أيضا يعني مركب حراء علمي جهاد عبادنا وتفرق كيف ستحال وعيري أنا واحد سوبي يا عمري مالك استوى سوبي رمضان وسوي عليه حال ما أنا مغفورا رسولك يا بقري صلى الله عليه وسلم مركا النبي وكعبر منهج وسطية زمان اللي اسكو ميزان يعني متطلبات كروحك هي متطلبات كجسمك إن لنفسك عليك حقا ولزورك ولأهلك إلى آخره ولربك فأعطي كل ذي حق حقه ثم يعني هذا واحد سلمان وعكوري زوجة أن ولا الكيس في الإسلام وأبو الدرداء إسلام تساوي كأيضا حول حال كذا حالية مركز سوحة يا أبو الدرداء محصاقوبا مركز واحد ولالك أبو الدرداء الديو ضم كمالهم أيتري مركز فهمي حبيبك الوسوجي ذا أيتري مالتي الوسومين الديو ضم كمالهم معناه هل الوسوجي ذوها مركز واحد نقطة قفل فرد أما لا أنت أقرأ حال كذا مركز سوتي ليري وبرتي وسدحري بري ولجوي حبيبك تنبر سيناي يعني بعد العشاء ويمسكوا ويحروا ساعة ولا يقولوا حلا مكسيجي فتى ويحروا ينسوق ويحروا ساعة ولوا الثلث الأخير مركز الجاري والهي عندك عام مركز صف ما أنت ويحروا ينسوق ويحروا أنا مرتبوا وأنا كل جو مسوي كتير مركز وحلا كبير حلا كي النبي وأقرأ صدق سلمان إن ويري مثل أركب حقي سيسيو سكو ميزان السلمان وكل شيء مركز تاسو وقال النبي صلى الله عليه وسلم مركو مغلي واحد هان مركز الوشعي أيها وحيري ضدك عليه يهود ضدك يا رويري ورسول جمعي مركز النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه وحيري ما بال أخوامي يعني محيليه ضدك سيدا يرادين محيليه إن أما عليه وحناي كان إذن قول دوان بدن إلهي وإذن قول عبس بدن وصاصة لكن هبيكنا خيبا كسحدا ولقيم لواكت كذا مرمر هو صوبها والسنة مرمر هو أفراد هوانا وابوسداو تنا سنة داود فمن رغب عن سنتي فليس مني وأتزوج النساء تنا سنة داود مرك سنة داود محلوة وبارس ميزان كسلوة مرك منهج كاس متكامل كا أو اسكو ضيعتران أو اسكو دمستران أيها ليلة وقفك إنو من خانتك النضوء
ومضاها شهداء الله في الأرض إلى مقارنة وياي مركا عدالة وحبها أنت مركا ميزان وحيدر الشرعية ميزان وحيدر عقلية سيدا ميزان كان سكرتي بريسك بركا الوعد الواقع ميزان وحيدر عقلية الميزان شرعي يجرو horta labadaba in la isla ogyahay oo la dhowro la ilaaliyo loo baahay ay miisaankana wuxuu leeyahay cabiraad iyo macaayiir uu leeyahay macyaarkaas in la dhowro oo la ilaaliyo waxaa ka mid ah curfiga wanaagsana ka mid ah in la ilaaliyo miisaanka wuxuu u baahay in loo hubo oo in quwad lagu dacmiyo u baahay ilaahay wuxuu dhahay وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم حدي الله كوحود أو مسلمين هديس كل عام فأصلحوا بينهما عدالة كسبين حدود إصلاح كسبين صلح فإن بغت إحداهما على الأخرى مداك هديك واحد قلته فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل مركع عدالة وتنرشد وضو إن هل من لا يستوي ومركع مسالحة الواقوم وضدك أن أي كشقين المسالحة عدالة أي شعراء إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما توفيق إله بهلنا لكن ومن سيجيدو وعدالة يقولون كشقيبة وغفلت كويترو يومين كلاو إن كوحها إسقراعي وقيم كيهاي مركا وعدالة إن حق السعودية وعدالة إن مسارحة الوصول مركا وحيبها أنت سي بيع وكوا ميزان كي بيع وكوا يشراء لو قلوا باهي ميزان كاس العلم والرضا يعني قف يقول حقيس وعيه ايوه واجبات كيسنين وعيه مفهوم عدالة الإسلام كوحوا عدالة ما إيمان كرتو واجبات هدين الجل واحد جنورت واجبات كالبتا واحد عليها لا نحن حقها وانستا لكن حقوق كلية لا تنسل وواجبات على الجذرين دين الإسلام ومجرتها العلم والرضا قف إنه أجيه وتوحد ليه مركا كتبير عليك يا أيها عدالة سير مجاري كرام عدالة وحلو جاري كرام إلا فافي وعيك عدالة أو مفهوم كيسة دمسترا ضدك إن لو فهم سيو أو سيدا شيخ وشيخ سكرت إنه قبضيو معاك إنه قبضتو مركا تطبقنا ومفهوم كعدالة فهم سن حقي لهلو مركا عدالة ولا جاري كرام بشيء عدالة وبسم كتاب وحكى العدالة وجاري كرام إن توبرت التنوصي عدالة سير وصمايو إن سي عملية أو ممارسة وصمايو سير مثلا كوحة كاسو هرجيدو كلا هذه واحد جروب كهرجيدو كاسو هرجيدو عدالة وصمايو مركا حكم كرديسي عادل كالنقو منصف كالنقو إلا العدالة إله اسقال عليه وله حتى قف كان عبدها عادل ونقو يعني نكاس والله واسكسور جدا لكن ساس قواياي تاس وكجعل تاس وكنعلها إلى تلالي ولكن قف كستو وكاسور جدو إن كليا حميه سأشيتي ونجي سأل شيئين عدالة ما marka meelaha cadaalad darrada isaga dhacaan waxa kamida xukunka oo gardarada ah oo la isku rido kaasaas waa ka tasniifaadkaas la siiyo waxa
saas oo kale. marka cadaaladda waxaan ku gaari karnaa ummadda inay fahmaan diinteedii ilaan sidaan muxaadarada hor ka maqleynay cadaalad ilaahay isaga caadila diintiisana caadila marka dadka qur-aanka la baro qur-aanka laakiin waxaa lagu barayaa sunnada nebiga sal alla alay slam in tatbiiqiisii iyo siiradiisii in qur-aanka lagu dabiqa loo baahanya yacni aafada hadda jirta waxaa ka mid ah yani in qur-aan la akriyo axkaamta qur-aankana laga fogya in dadka sunno loo akriyo sunnadii nebigana laga fogya waa cajaa'ib waay marka waxa waaye waxay ka mid tahay nooc min adalaal ay ka mid tahay qofka in uu baadinimo inuu ku sugan yahay taasay ku fahmaysaa maa adalla allahu qawman bacda hudan kaanuu calayhi waa maxay ilaa uutul jadal yani muran iyo maxaa kaas kaan maxaa ahaysa laakiin noloshoodii cadaalad ma samaynayaan rasuulku sal lla alay slam suu samayn jiray marka waxaa loo baahanya cadaalad in laga sameeyo dulmiga mar walba in hal dhinaca laga noqdo in la inkiro dulmiga maxaa yeelay dulmiga ilaa shirkigu ku taagan yahay ku jooga ilaahay dulmiga waa isaga iska xarimay ummadiisa ummadana u ka xarimay inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamu marka insha allahu halaasaa u baxayna wixiina oo dood iyo insha allah aad ku daraysiin ama su-aalaha وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دولة إسلامية هي الجارة ولا يشرب مرة المعاوية إنه بلالي وعيد منهم ودفاع ولا لها أخواتك لها وحي عصدين هي سؤالها مقلام هي منامسي جوابتي سؤال شو يسوق بسرعة مرتا أروحك ويدي نوع المغلب من الأساس أيوه مقلام دولة إسلامية بينها دولة أوروبا في جسمها يعني دولة إسلامية شرعية الإسلام بقول قيس دولة إسلامية إن أي قاوة كاشة وقاوة إلالسو سحمية شيخ تصمعين Soomaaliya dowlad islaam inay tahay waxaa laga wadaa dowlad islaam inay noqoto raadkeedii ama jidkeeda ay martay ama ay xabtaabo laakiin ma gaartay inay dowlad islaam noqoto waxay la tahay dowlad islaam si sahal marku noqon karo dastuur hal mar la bedelay dowlad islaam uu noqon baarlamaan hal mar la codeeyey oo qabaaisha soomaaliyeed ku mahadsiiyeen dhammaantood waxay dhaheen shareecada rabna yani waa la isku raacay baarlamaanka soomaaliya saan ogahay hal mucaarad xataa kuma jiro soomaaliya waayo taas waa tamaam waa adiga oo dhahday muslima ahay muslimaadta ayaa ku diiday laakiin maxaa muslim ku noqotay waxay muslim lagu noqon lahaa ma gaartay wa marka dowladda islaam waxaa lagu noqdaan aaminsanahay marka hore al-icdaaru ila allahi oo kaamila inay dadka dhan gaari karto dowlad la isku raacsan yahay inay noqoto ilaan muslimiinta oo dhan ku dhex nool soomaa marka dowlad oo lagu heshiiyey oo qofkii ka baxa hadhow dhahay waa muxaarib waa khaariji waa baxay waa takfiir la dhihi karo heerkaas inaan gaaray weli ma umaleynayo aniga ilaa hadda waxaa albaabka furay qofkii rabo dowladdaas inuu soo beero dowladda horumarin badan u baahan tahay laakiin waddo saxayna hayso maadaama laga indilaaqay shareecada waa ogolnahay heshiisna waa ogolnahay wadahadalna waa ogolnahay waa aaminsanahay laakiin way tabar daran tahay
عرب وأنا إسرائيل وأنا إسرائيل سوما ويبقى دولة كسوق قالوا دولة مركي كمان دلتها أنا كم أصلا هي الدولة الإسلامية هم عرب كانوا كويس واقع بلد فعل كده أنا أي كل قطع محو أي لا مواد السوق سوق هذا كالسوق دي قدرت أي بالسوق وعن كده قدرت أي بالسوق أنا حتى الإسلام تتعسف أي قدرت فريس marka inaad adigu wixii oo dhan aad tiraahdo waa ii xalaal liigi qaawanaantu waa ii xalaal aad dadka dawlad islaamiyahana oo adigu aad ummadda aad u sheegto waxaad loo sheegay anaga shicbigahana loo sheegay beenan sheegayna waa inayna tiraahdo hadday isma fuli karo horta aan dhex gala sheekh daakhala mujtamac muslimiina markaynu nahay waxa shaksiga laga rabo iyo nidaamkana laga rabo مسلمكو دولة يشعب نظامكو يعني شريعة الإسلام وأي تابع الإسلام وين خصيصا على سبيل المثال النبي عليه صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم وحى شريعة متقنة أو إلهي يقانا أو رسول يقانا صلى الله عليه وسلم قف كردتنا مسلمين كعنتي سيعان كيسا كما الكلام وحفلها إن بدنا مسلمين تكملوا معنا كل إلينا بالكلمة يبوحان إن بدنا مسلمين تكملوا كعنتوا إلينا بالكلمة يبوحان سيدوا كلام وحا شريعات أي فرق صلاة وقرآن لي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة وحا إلهي تسمى بي قانا مدى حماة ومنكر بالله مسلمين إن بدنا مساجد عمل وهذا حمامتي لابن آدم بل إلا ابن آدم بل هي أي جيل كلام وفهمي وصوصا مركا خلالات كان مجتمع كل جيل أيها دولتنا كذا نشوف وحكو يلي سؤال وحكو يلي خلالات بدنا جيل ومرنا هينو بلوغا جيل بلوغا جيل وحكو تصيا إن برلمان كله عدي إن شرع الإسلام كله يسكتهم لكن سهل وبان تسهل لما رأيت الموضوع مهم غياب العدالة وآثار المسلمين هل أنت ترى أن بريطانيا فيها عدالة لذا جيت عملت الموضوع هون؟ الصومال الفامي لا شكرا سؤال شيء سواحة تاعي إنجليز عدالة ما في جستا مسلمان أعتقد أن هناك عدالة جزئية في بريطانيا وليست عدالة متكاملة فمقارنة بكثير من البلدان التي فيها لا عدالة ولا شبه عدالة فهي عدالة بالنسبة يعني منبر من لا منبر له يعني أما إنه هي العدالة المنشودة فلا أعتقد فالعدالة في الإسلام أعمق وأوسع من مجرد المساواة في حقوق مدنية معينة فهي فيها مساواة يعني أبعد من الحدود الجغرافية أبعد من الحدود الوطنية والإثنية وهذه بهذه الحدود على سبيل المثال الديمقراطية التي يؤيدوها في بلداننا غير الديمقراطية التي يرتضونها لأنفسهم فهذا ليس فيه عدالة فهي عدالة جزئية وعدالة ضيقة جدا وعدالة عنصرية إن صح التعبير لأنها فيها تمييز تعلم حتى تسييس العدالة نعم أحسنت لما لوكربي اثنين عملوا القنبلة واحد روح مع السلامة واحد 20 سنة سجن نعم طبعا معك حق صحيح أي أن الخشب عنا ينفرمي واسكسنا أني لك يوصل فينا الدولة أنا ما زلت لك عدالة وانا صميم دولة أحداث سورجين حتى عدالة وصميمنا بس انت صمراء هاي
هي أنا ماشي السوق تاخر الله يعطيك كم حياة أنا أقول بشوف على السوق كذا سلاك بقى والله علم بليه هي هذه نار السوق قليل لها هي والله رأيك أكرم بسيدة مية أنا تاس كذا كاتي هي ميكروفون كشاشة. أنا سؤال Soomaali anaga markaan joognay oo yaryareen masaajid markaan soo galno safka hore oo kale markaa gashin dabeecad waxaan qabnay nin oday dhinac oo gadaal ka imaaday kan kor jooga ku leeyahay ka bax safka oday ugu bax kaas cadaalad mu ahaa mise cadaalad darro way hadday tahay ixtiraam hadday tahay su-aasha waxay tahay qof ku jiro safka koowaad masaajidka ma in looga saaro qof kale oo gadaal ka yimid oo da-weyn ama saas muxtaram ah cadaalad miya waxay amisana hadday tahay yani maalan nabiga sal l slam wuxuu yihi caruurtu waxay ku tukanayaan ragga gadaashooda gabdhaha safka ugu dambeeya noqonaya tartiibtaas haddii sunnada la fiiriyo marka la leeyahay ninka caruur yar waa ilmo waa saas haddii loo fiiriyo waxay aaminsanaya sunnadu baa la dabaqaya ixtiraamka bay soo gelaysaa laakiin hadduu yahay qof qaangaar oo 15 iyo kor u dhaafay waxay aaminsanahay sunnada nebiga kuma jirto qof in saf laga saaro laakiin mid kale waa u qaadan karnaa lafteedii yani nebiga sal slam waxaa dhahay waxaa noqdaan kuwa safka igu xigo waxaa noqdaan dadka idinkuga aqoon roon oo cilmi leh oo dadka oo macnaha odayaasha dheergaadka ah saas haddii loo fiiriyo maxaa leeyahay imaamkiiya wax noqday ilaa qadarada waxaa ku dhaceen waa meeshuu ka baxay gusiya ka burtay ama waa suuxay waa dhacay dadka safka ugu horreey waa inay yaqaana xataa waxay samayn lahayn sooma si dadkii kale salaadooda badbaadiyaan laakiin dad aan waxba aqoon haddii safka waa la soo buuxiyo dhibaa imaanay saasna haddii laga wado ay lafteeda ma xumo laakiin sunnada kuma jirto qofkan waa yariya qof kalaa macnaha safka ku aqoon in la yiraahdo saas loo soo jiido waxaan aaminsanaya inay cadaalad ka mid ahayn qofka meeshuu kusoo hormaro isaga ayaa ku xaqlay xataa hadduu baxo yiraahdo majliskan anaa iskala halaysii haayo nebigu wuxuu dhahay saa ku xaqlay marku soo laabto xataa allahu aclam هو في المثال البريطاني في الضمان الاجتماعي وكذا في الاجتماعي الفقير ياكل ويعطوه كذا محمد الغزالي يقول رحمه الله انه لو انا بوقع لكم هذا هو الاسلام في الاجتماعي فقط هل انت تؤيد هذا الراي؟ في السنة انه ممكن العدالة تتحقق في ظل حكم غير اسلامي هذا في السنة واضح انه مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النجاشي انه اي في الحبشة انه ملك لا يظلم احد عنده فاقر له بالعدالة مع انه غير مسلم عدالة اجتماعية سياسية فهذا لا مانع عندنا انه نحن انا قلت بوضوح انه في عدالة جزئية ممكن في جزئية كذا وفي جزئية كذا في الصناديق في عدالة طب بس ليست عدالة مطلقة منشودة ليلة منشودة الله أعلم. سؤال waxay ka timid dhinaca gabdhaha ayaa waxay leedahay sidee looga bixi karaa cadaalad darrada mujtamaceena Soomaaliyeed camintay yaase ka saari karaa cadaalad darrada xoog ma lagu keeni karo waxaa lagu keeni karaa wacyigelin iyo ummadda inay isu timaado oo ayagoo is-ogol oo isku ogol islaamka qofna qof kale islaamka saaraynin qofna qof kale ka saaraynin soomaalinimo qof ka xiga male Soomaaliya kulligeen Soomaaliya nahay mabda'aas waa inuu isu karaa iyo sidaa nahay
saa ilaahay kuu khalqay soomaaliya tahay qabiilka rabtida aho sidiina muslimana si haddaa isku qarroso ogolaan oo aan mabda cadaalad ku dhisan aad samaysano waxay aaminsanay taasu baa lagu gaari karaa marka hala badiyo yani wacyigelinta iyo tacliinta hala xoojiyo baan dhihi lahay dacwada hala sii labalaabo marka si kaloo lagu gaari karo anigu ma arko maanta haddii dawlada soo duulaan oo dimuqraadiyadan oo kale xoog soomaaliya yani looga dabaqo mu malaynaya inaysa cadaalad ku imaanayso qof kale inuu xoog hadday dadka ku qabsado oo tuugana gacanta ka gooyo oo dadka saas oo kale xuduud shareecada ku sameeyo mu malayna cadaalad xooga ku imaanayso dadka waxa waa qancin iyo wacyigelin aa lagu gaari karaa yani wadada waxay wada dheer oo tarbawiya saas oo kale tii icdaadkii maanta khudbadan ka sheegay oo kale yani nebi muuse calayhi salaam markii ilaahay xataa nebi muuse ayaanu fogaanay nabigeena sala alla alay slam wuxuu sameynaya yani cahdigii maka dadka waxay aaminsanyihin wuxuu ahaa cahdi oo cabsi iyo baqdin ah oo dhuumashaal keliya wax lagu waday oo laakiin wax kale oo weyn dhicin laakiin sax maaha saas way tahay laakiin nebigii dad buu dhisaayay daarul arqam ibnu abil arqam muxuu ku sameynaya nebi sal lla ly slam meeshaa dadka lagula kulmaayay waxaygii soo degay meeshaas ay ku akrinayeen nebiga asxaabta ugu sheegaya ilaa masaajid ma ahaysanin cadaadisaa jiray banaanka ma tukan karaan saas oo kale marka waxaa jira ummadda in la diyaariyo loo samro isticjaalka in la iska daayo oo in la isku soo dhawo walaaltinimada islaamka la badiyo oo waxaa keeni karo qaraxa noocan ah nacaabka iyo kala fogaanshaha hadda baa laga hortago hadda intay dhow yahay xarakaadka oo dhan waa inay ku baraarugsan yihiin masaajidda culimada saas oo kale yani culimadii shalay oo meesha dagaaladii soomaaliya ka dhacay oo aniga waxaan xasuustaa sheekh axmed nuur karyare xafidahullah iyo tabori noogu yimid 94 marka urur la yiraahdo umma ururna soomaaliyeed oo isku tegay ilaa 7 urur ah ayaan madax guddoomiye u ahaa marka xogaa waxaan shir baan dadka ugu yeernay sheekh iyo muxaadara jeediyey sheekhi waxba kama hadlin markaas waxaa xoog u socday dagaalkii gedo aa dhahay axmaara soo gelisay markaasaa ninaa su-aal weydiiy waa yihi sheekhu ka waran dagaalkaasi jihaad miyaa mise maaha wuxuu yihi jihaad umaa kuura fidna u arka wallahi biyaadan xafsasuur markaasaa la kacay sheekha lagu buuqay waxaa li jihaadka waxaa dadku diidaysaa saas waaye culamaa sulta waxa kasta meel kasta marka maantay dadkii waagaas dadkii tawqeeciyey jihaadkaas in la galo inuu waajib yahay saxiixay culimada hadda la takfiiriyay ku jiraan qaar kamida keliya oo la yiri dhiiggiisu waa banaaya meel kastaa lagu joogan karaa dadkii la dhahayo waa shabaab muslimiin xamaasaysan jihaadka iyo waxa waayaala sur istaagin dhegeygan ku maqlay qof dhahay oo marka la yiri waxaan xamaaska badan laga joojiyo marka ummadda islaamka ma isku xirnaan soomaalida laa qabiil ahaan isugu xirnaan walaa barlamaanan jirin dawlad ma haysanin haddaa xoogaha intii yar cartay iyo markay soo bilaabatay intaaba xoogaha calankii meelaha ku arkaynaa hadda united nation waxbaaba iska muuqda mugtahay markaas walaashay waxa ma jiro marka ayadu saas tahay oo axmaarana ay xoog leedahay ilaahay awood lehay oo kaniisadaha adduuweynaha ka dambeeyaan oo reer yurub iyo maraykanku uu ka dambeeyo ayaa israa'iilna meesha ay u taagan tahay eritrea meesha ay u dhow yihiin ayaa hadda axmaaro juuqjuuq soo siinaysiin ur ummadda ku halaagaysiin fidma u arkaa wy marka hadda kulligeen waxaan leenahay fidna waysama laakiin waagaas qofka fidnada waxaa qabaa-isha qaar maadaama ay goboladoodii la garaacay aad bay u xanuustaa igaa dhahay fidnawa laakiin soomaalida kale waxawaa
midka istaaga midka la dhahay jihaad waa bahasas oo kale marka fidnada intayna dhaceen lama kartaa leeday lama arko waa istashkiilisaa marka allahu aclam waxaan mar dhow in laga bixi doono ayaan ku rajooweynaya sababta meesha ugu dambeysay waa gaartay meel ka xun meeshan hadday gaari karto umalaynay waa isgaalaysiinay waa isdilnay waa maxaa noo arag su-aasha kale waxay leedahay sheekh ninbaa wuxuu qabaa laba xaas marka isagu wuxuu aaminsan yahay oo uu leeyahay anigu labadayda xaas waa ku filnahay waan u cadaalad samayn karaa ilahayna waa ii baneeyey laakiin cadaaladda isagu wuxuu ufasiranayaa ayaa saa-ilku leeyahay marka midi ay taag daran tahay ay u baahan tahay inaan garab istaago waktigayga oo dhan iyadan siinaya maadaama adigu ay isku filan tahay xitaa haddii gabadhii kale aysan iyadu raalli ku ahayn qaabka uu u qaybiyey marka dhinac inuu u bato miyay noqonaysaa oo haddii qofkii xanuunsan ama qofkii isaga caawinadiisa u baahan uu waktiga oo dhan uu geliyo cadaalad daray noqonaysaa mase sida uu sheegayo baa jirta oo waxa weeye cadaaladuna waxa weeye marba meeshii looga baahan yahay isagu uu xooga saaro waayo mar kale nabiga sal lla ly salam xaasiskiisa waa u qeybin jiray ayaamaha mid kasta way ugeeda ayaanteedii safar markuu gelaayo mid uu rabo inuu la baxo qorituur uu samayn jiray qorigeedii usoo baxo taasuu bixi jiray marka haddii kale uu ka idin qaadan jiray middaa uu habeenkeedii ay tahay yani maalan markuu xanuunsaday uu xoog u xanuunsaday islaamihiisu ka idin qaatay in meesha uu caasha lagu daaweeyo lagu xanaanaday way aqbaleen way u fasaxeen marka meesha waxaan ka fahmaynaa marka haddii ay fasaxado iyada xaqay u lahayd iyadoo og oo tanaasul ka samayso insha allahu xaraj male laakiin isaga inuu iska fafasirta maaha yani xaqa waxay u leedahay kullay duruuftooda ayaga yaqaanaan aniga iga og yani xaqeedii waa la ogyahay alcishra bilmacruuf lilahi subxana watacaala masruufkeedii iyo suxba waxaa la yidhahdo alcishra isku guri inay degan yihiin oo in cilaaqada xiriirkaas asoo kale uu jiro ilaa duruuf hadday dhacdo safar iyo waxsasoo kale xabsi iyo qof meel kale hawlka wato meelo kale qof ka shaqaysan kara waxay isku og yihiin dhibaato maragta laakiin waxa waaye aniga haddaan runta ilaahay iska sheego yani marka qaarkood in badan waxyaabaha aan leenahay sunno waayo hawo shaksiga sunnada lagu qariya yani aniga waxaan jeclahay in xoogaa macnaha ka mala dadbado marka qaarkood xorriyad badan inaa iska helo marka waxaan dhahay sunniyata tacadud baa markaa u caraya taasaan ku dabanaya taas cadaalad maaha inaad waadix u noqotid gabadha waadix ugu sheegtid waxaad leedahay walaalay aniga saasaan dareensanahay waxaan rabaa inaan lameeyo marka xuquuqdaas iyo waajibaadkaas xuquuqda islaamka waatana aan ku heshin marka hadday ku tiraado maya samaynayn aniga ma awoodi aniga maragi waxaan aaminsanahay xuquuqdeedi ma kasoo tanaasulay hadday kugu tiraado marka waxaa waajib ah xuquuqdeeda inaa u fuliso sababto ah xuquuq ilaahay siiyey maa xuquuq ragga ay siinayaan maaha wax oo raggana laga raadinayo maaha oo waxa ilaahay bixiyey oo waajib ku awa gabadha saas oo kale yani waxaan leenahay ayada lafteeda xuduudeedii ka dhibaato waxaa ka mamnuucan oo xagga islaamka keliya xuquuqda madaniga oo reer galbeedku ay siiyaan gabdhaha waxaa la yidhahdaa inta badan xuquuqda waa loo badiyaa iyada ama waxaasaan lahaa marka inayna xuquuqdeedii dhinacaas intay u adeegsato xuquuqdiisi meel lagu dhaca mar dad muslima nahay wixii xuquuqa wixii waajibaada inay isu dayactirnaadaana fiican
وأتمروا بينكم بمعروف لله سبحانه وتعالى هشيس كامل ما يوضحك. بسم الله. شيخ هذا أنا رحمنا الله وده المسلمين. بركة هذه لو أخذوا المسلمين أرين رحمته. مو بنان تهاي إن أي حكم تجاري قال عن مسلم هاي يجوا هذي كربط waxaa uu saa-ilkani weydiinayaa sheekha wuxuu yidhi sheekh maadaama aan joogno waddan aan muslim ahayn haddii laba qof oo muslimiin oo waddankan joogaa ay isqabtaan ma u bannaan tahay inay qaali ama xaakim aan muslim ahayn u gar dhiibtaan oy u gartagaan iyaga oo heli kara qof muslima oo kala saari kara? waxaan aaminsanahay xuquuqda in maxaakimta ay goyn karaan waa xuquuq madaniya haddii xuquuqda madaniga markaasi oo dhexdeeni haddii ugu kala qaadan karo qof kale oo muslima in dhexdiina dhex galo oo musaalaxa la sameeyo taasaa ugu fiican. laakiin haddii lagu gaari waayo ama lagu heshiin waayo haddii marka qaadiga madaniga maxkamadda haddii loo noqdo uma arko inay tahay gaala in loo xukuntay sababta mas'alo oo madaniya oo baxti waa civil rights oo islaamka meelo iska diidaan meelo iska galaan meesha islaamku ka waafaqsanaan هذا إلهي يبيري وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم حتى حكم قاضية دوكوسو مدنية هذا قلت إليك الترطعي حقالا من الله سبحانه وتعالى مرتاس وحلقة ومرك حدي قرطعي لكن وقارب الكوكوه وحدبات أعمالها غيرات محالك قالت حكم كقالت كريا أرمها زمالية وكر بعد كلمة أنا بارج أنا بقولها حقوق ذا سوق باسبور كابيل ودي وكلا يعني وراء قرآن ودعوني وحقوق ذا بدني حق هذا الإسلام في يقول يعني حتى الحق أقولها ستي كان كره سني سيد كان أسكول جنتين قال دويا مسلم دويا وحوين مكان ثمانيسو معايا يعني حكم الإسلام في حكم قال والإسلام برضه معها يعني وأهمه إن سوء العلم مضامه أهمه واحد له حكم قال مقرر أهمه واحد له سيا وذات كل شيء يعني وح إسلام في نفرايا إنك بدن تشريع غير وحياة السوقات فقه الإسلام السوقات لكن وحياة الدران حالا أي مصلحة ودي السوقات مركب وحي دينتين وافق سنين هذا خوفك مسلم كان ضمير كيسي دينتي شعبي بيس مو سامح سوقته لكن وحياة مدنية أو العبولية هذه تعي إن على سبيل المثال جوار الوحاد يعني waxaa la dhahay gabar ayaa ninkeedii wuxuu ku handaday dil oo kale in uu kaw ka siiyo yani marka booliiska in ay ka raadsato macnaha in qaanuunka isku difaacdo uma arko inay gaalo u xukuntaata sababta ninkan waa lala hadlay qaraabo ahaana loola hadlay waa la kaduwa culimaa la hadashay waxay wadaadamaba arki karo mana furaay masaayilay kawanksiina waxaasa soo kala marka qofkaas saas axad gudubka ilaahay ku samaynayo waxaa arkay gabar 3 jeer ka badan la fura marka waxaa la sheegaya baabkii qeylkii raadinay oo dhan inta u raadinay waxa ugu weynay oo aan dhahnay wallahi waxaa ku meeli karo oo wadaadada tuuray ku handaday ninkaas oo kale bilaa calaykum gabar muslimada inay ka carafto oo iska dhiciso oo qaanuun booliis hadaa ku dhahay idin weeyaan meesha ka fariisan ninkaas oo kale waa gartiisa abaalkiisa booliiska waa maxay kitaabka ilaahay sayidina sunnadu waa diiday
هي قرار الوادي حرة تلقينا بوليس لأبويات مع الأسف نوعية سائل su-aasheedi waxay ku saabsan tahay cadaaladda dabcan dad fara badan oo soomaaliya hadda waxaa wahmi u galay dadkaan hadda waddanka soomaaliya magaca culimada sheeganayo oo lug gacan waxay gooyaan waxay mataqaanaa rajmiyaan wixii oo dhan uga dhigay dadku marka waxay aaminsan waxaan leeyahay cadaalad islaamiya tahay qur'aan iyo sunne ay u arkaan qofka dad tirada waxaan ninkaan ma fulin karo ma samayn karo liannahu maanta magaaladan haysta berina baa laga qaada waa laga saaraya beri gobol buu haysta gobolkaas waa laga soo ceyrinaya dadka ma yeelaya maxaa isu jira masiiraya dadka noocaas marka su-aasha waxaan ku soo celinayaa dadka la gooyo lugaha iyo gacmaha iyo kuwa la rajbiyo lagu rajbiyo yani bilcadli yani wax lagu magacaabo qur'aan iyo sunna lagu magacaabay aanan loo qumi karin yani meeshan aysan dawlad ka jirin marka nin uu haysto gobolkan qabiil baa haysta isagoo labadan gobol buu haysta ama tuuladan haysta intaan tuulu haysta qof buu soo qabtay lama garanayo xataa wixii markhaatiga wax kusaabsan iyo waxay yihiin dadkaan lagu samaynayo leannu marna ma arkaysid يعني انت فرح بدن بقول كيلو 19 إسقال واحد على الوسط منايو وعدد تبردن أدي أو تبردن عن قبيل وين هاي لأن هذا لما يراك الشيء ولا معه والله ما بيكون بين مركب عدالة تفر بدن مركب حي أمسيه ومران عم يروح جوا مران ثلاث جوا وقرآن أخنا علماء لفتيس لكن يعني هو حامل هي راعي هذا الإسلام يرجع عليه ويقول عدالة بالفلنا يا شعائر القرآن كمان بيننا حديث رسول الله بيننا أنا تصير أمك بحرك waayahay yani in la fuliyo xuduuda shareecada oo ah xuduuda jinaa'iga ah shareecada gacmaha la gooyo rajmiga qofka qof dilay la dilo saas oo kale dadaa waxay u arkaan inay cadaalad darro tahay haddii lagu fuliyo duruufta soomaaliya oo kale maanta ay tahay sababtoo ah inta badan dadka tabar daran oo reero waaweyna ka dhalan dadkaasa lagu fuliyaa dadka kale waa lagu fulin karo ama saa uma badno marka maxaa la samayn karaa horta shareecadda in qaabkaasi loo fuliyo ama jawi ayna ku habbooneen loo fuliyo waxaa u arkaa waa nooc min alfitna oo dadka diinta laga fidnaynayo waa nooc arrimo lagu mutaysan karo halaaga ilaahay subxaana watacaala inuu halaag ilaahay cuquubiisa inay soo degto sababta nebigu sal ll slam wuxuu dhahay inamaa ahlaka man kana qablakum dadkii idinka horreeyey waxay ku halaagsameen buuri wuxuu sheegay haddii midka oo tabarta daran hadduu waxado gacanta ka goyn jiran yani xuduuday ku ogi jiran qof shariifa qof shariifa laga wadaa qof oo macnaha awood leh laga hebeysanayo haddii uu wax sameeyana way iska dayn jireen saasay ku halaagsameen marka qaabkan qaab lagu halaagsamaayo moogihi qaab oo naajixa maa waxa sacuudiga ka dhacayo kale inkastoo ay dhaanto tan soomaaliya maxaa yeelay ninkaan la tuhmay xuquuqdiisii mu'amana ma aha yani shubahaadkii horta shuruuda jirto islaamka oo xuduudda in intaan la fulinin marka hore xuduudda waxaa la rabaa inay noqoto raadica waa inay shakaysa horta raadica waxaa la dhahaa hadafkeedu maha keliya qofka dembiga sameeyo cuquubada in lagu rido ma aha waxaa rabaa qofka intaan la sameeyey ka hore in laga celiyo inuu waxa sameeyo walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi qofkii qof dila haddii la dilo boqolaal kale oo ka fikiraysa inaad dabdishaa ka harayso marka dadkii nabad iyo amaana helaya horta xuduudkan la fulinayo
hadday waa inay shaqayn kartaa jawiga uu ku shaqayn kara umiga iyo qofka shubahaadka oo dhan waa in ayna meesha olin idra-u lxuduuda bishubahaat hadday kun yani boqolkiiba yani kunkiiba hal shubahadda imaan karto oo xuduudan haddii la fuliyo xaqtara ay ku imaan karto waxaa sunnaa inaan la fuliyo idra-u lxuduuda bishubahaat meel kastoo shubhad ay soo geli karto xuduuda daa'imula nabiga sal lla slam marka xuduuda yani arrin oo cibaada ah oo iskeedii cibaado oo sida shacaa'irta sunnada oo saas oo kale oo farad mubaashir ah ma ah waa farad lidaatihi arrimo kale ku xeroba iyo ninkan gacanta la goynayo waa in horta shaqo loo abuuray ninkan wax ku filan oo inu heli karaa meesha majaaca iyo gaajo inayna ka jirin yani haddii meesha majaaca ka jirto oo shubahad ay jirto inay gaajo jirto oo dan ay u geysayba hadday jirto lama goyn karo marka duruufta gacmaha lagu goynaya duruuf saxa maaha maana male khaladaad inayna dhici karin qaabka loo fulinayo garantiin ma aha qaabka islaamka inuu noqon karo qaab saliima inuu noqon karo natiijo inay kusoo bixi karto marka sidaa daraaddeed shareecad islaam ma aha qayb intaa laga fuliyo qaybna la daayo shareeca islaam ma aha dadka qaar in lagu fuliyo dadka qaar in la daayo haddaadan awoodin haddii maqaamkii biliyadda ma gaarina iska day dadka carab kale kalaa kala hadal waxaa samayn karta samay dadka u khadmeen laa tamkiin ma gaarin markaas inaa makanaa lahu fi lardi ma adan gaarin ويأجوج ومأجوج أجساد وقصة بسيده وكل هذه الشيء والقضاء كفهمت إمكانات تسمية حساب آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرة أو تسمى ذلك حضرتك مشاريع على سوق المسلمين كده شقاء أبور كده اسكتان فور كده وكدع كده تكذبات كدع كده دبتك kusoo duulaa ka dhicin karin waxa waa xuduudana maxaa looga degdega xuduud lagama bilaabe waxaa laga bilaaba salaada salaada marka shacairta islaamka zakada xajka saas oo kale arrimahaas bulshada dadka in lagu faafiyo markay dawlad dhalato shaqada dawladda iskala kooxna ma iskala qabiilna ma iskala fardina iskala dawladda iskala wallahu aclam sheekh su-aal kale ayaa waxay oranaysaa dhinaca gabdhaha ka timi gabar ayaa waxaa qabay wiil wax nafaqa ah ama masruuf iyo dhaqaalaha may qabin markii dambena iyadoo xaaladu ay iska bugsan tahay kastiba wuxuu ugu soo diray markii aan la jeclay marka iyaduna ma rabto kolley isaguna wuxuu yidhi waa kaa dhaqaaqay maxaa xal ah oo dadkaas tasarufka kolley su-aashay ahayd waa usoo naqliyey waa fulay kastiba usoo diray marka wax nafaqa ah oo ay ku qabtayna la jeedo mana rabto oo hadda rabitaan la joogo su-aal ugama jeedo laakiin qur-aanka qornaa asaasa marka waxaa u fahmay inuu diidaya inuu furo ama inuu dhaqo saas hadduu furay macnaha ninka waa iska tegay maxaa wejiya hadday tahay marka horta diinta markay yar tahay ku dhaqankeedana waa yaryahay ilaahay hadday ugu cabsan lahaayeen marka xuduudiisii walaa tattakiduu aayaati illaahi huzuwan xal weyn bay lahaan lahayd meel fiican baa laga qaban kari lahaa dadka waxaa ku filaan lahayd in la yihahdo itaqu llah ilaahay ka cabsado waaclamuu anakum mulaaquuhu ilaahay waad la kulmi doontaan ogaada in la yihahdo intaasaa ku filaan lahayd
maanta laakiin kuma filo sultaan raadicana ma hayno marka maxaa la sameynaa allah mustacaan qof kastoo caaqil ah gabadha marka hore waxaad siisaa qof oo hadhow ushuuxa diibana ka qaadi kartid oo ka furi kartid oo gabadhiisa soo kale meel ammaana gacan ammaanaa geli marka hore marka haddayba dhacday allah mustacaan ninka hadduu muuqan yahay maxaa la raadiyo marka maxaad damacsan taha la yidhahda hadduu yidhahdo gabadhii waa furay de waa sidaa hadduu yidhahdo ma furin waxa waaye culimada meesha degan ayaa loo geenayaa kiiska ayagaa gelayaan say u xalin lahayn ayaga yaqaanaan sababta masaa-isha oo dhan isku mid maaha بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خير علماء iyo dadka soo xeerkan waxaan ka hadlayaa mawduuc ku saabsan aan ka baxsanayn kanan darbiga noo wada cadaaladda ana waqti alxamdulillah rabbil alamin Soomaaliya waa dad muslim ah oo maanta dad lagu xukminayo kufri ma san amsana kullu ka Sacuudiga isleeyahay balse hal dhibaato jirta waxaan ka hadlaynaa mawduuca waa cadaalad iyo in anaga cadaalad isu sameeyno ilaahayna asaga naftiisa dulmiga ka xarimay anaga naga xarimay anaga Soomaaliya markuu waxaa jirta wax abka aan kusoo dhaqayn waligeed oo ku saabsan dulmi ay ka mid tahay dad anaga naga mid ah ama naga diin badan ama naga aqoon badan ama naga xadaarad badan in lagu dhibaateeyo xaq qabaay oo ah dulmi in la gabdhahooda lagu guursan karo wiilashana ma guursan karaan way liitaan ayaga maalin way qeynayaan wixii la war dadku waa la simanaa la mid baanay dulmi ma dadka daay mashruuc arrintaas ku saabsan oo ummadda kulminayo oo laga sheekeeyo dadka dhibaatada lagu hayo inta aanan ka hadlin midda guud dulmiga anaga aan galnay oo dadka nala midka ah walaalahana aan ka galnay ayaana weligiis ka bixin marka maxaan dulmi uga qalinayna anaga aan dulmi samaynayna Soomaaliya gudaheena marka waxaa rabaa kiiskaygu su-aalna waa yahay macnaha baraarujinna waa in marka arrimahan kale marka la qabanayo in kiiska lagu soo daro oo lagaga hadlo haddii la marka anaga inta aan dulmi ka hadlay anaga wax ma dulminay mise ma aan dulmin su-aashaas aan qabaa سائلكاس وحول سؤال مهم أن يسوق بيوه سوى قبلنا كجوتا أو مقلان عدالة هذا أيام موضوع كسابسية Soomaalida dhexdeedana waxa aynu u baranay oo aynu naqaanay oo soo jireen ah in qowmiyado dhan iyo qabiilo dhan la xaqiro oo xuquuqdoodii aan si sax ah loo siin ama qaabkii saxda ahaa ee la rabay in loola dhaqmo dadka kaleeto loola dhaqmeeyo loola dhaqmin marka dulmi baynu samaynaynaa dulmiga aynu samaynayno saaxib loo geli karaa waa su-aal Soomaalida dhan u taalo ummad ahaan culimadeedii oo dhan aqoonyahan madaariskeedii masaajideedii muasasaadkeedii oo dhan shaqadan waa shaqo aada u weyn mar badanaa laga dhaweysiyey mar waxaan xasuustaa xataa la soo jeeday muctamar waxaa leeday sheekhayaashiin haddaa run sheegaysin sheekha leeday sheekhu adiga waa taasaa gabar reerahaasa balhaba guursoora oo kugu meernayna haddaa run sheegaysa heerkaasay gaartay yani marka waan dareensanahay masalada masalad aada u weyn waayo waa dhibaato yani in dad muslimiin ah oo Soomaali ah oo ay saa dareemaan waa dhib jira wa dhibka mas-uuliyadeeda annaga oo dhan asxaab waxaan aaminsanahay waa dhaqan soo jiray mararka qaarkood waxa waaye jaahiliyaadka mukhallafaadka jaahiliga oo ilaa hadda sii soconaya sida nabiga sal slam uu yiri yani maxaad jaahiliyaadka nooca ka mid ah waxay duruumadeydu wuxuu yiri kama tegayaan ilaa maanta qiyaama waxaa ku jiray alfakru bilaabaa in qofka awiyashiisu ku faantamo iyo casabiyada noocaas oo kale way jiraysaa wuri yani way jiri doonaan maca dad bay kusii haraysaa baqaaya dad maxaaladada waxaa jiray iimaanku heerkaas gaarsiisneen in uu waxyaabaha dadka ku dhaqmaan oo dhaqan bulshadeedka yani sultaanka dhaqankaas in uu jibiyo oo sultaanka iimaanka ku jibiyo waxaa jira awooddaas aan gaarsiisnayn yani sawir waxaa usoo baxayaa yani dadka
نبينا صلى الله عليه وسلم سورة الأحزاب يعني arrintaas qur-aanka si cad buu uga hadlay yani sheekadii zayd iyo zaynab waa ogsoontihiin yani falama qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha ayaa iyo tii kala tabaniga saas oo kale nebigu culays bay ku ahayd xoogaha uu ka cagajiidayo laakiin waxaa la yidhi watakhsha annaas wallahu axaqu an takhshaahu laakiin waa la qeexay qur-aankia lagu sugay ilaa maanta qiyaama waa la akriyay nub soomaali haddaan ahay suuradda axzaab xaggee ka marayna maxaa see ku samaynana marka aniga waxaa aaminsanahay waa yani imtixaan buu yeeli waay soomaali haddaan ahay inaan kulligeen arrintaas halgacan ka noqono ilaahay ugu boqno subxaana watacaala suldaankaas sidaan ugu qaalib noqon lahayn suldaanka cashaa'iriga الله أعلم. هذا أذانك إن شاء الله قلنا كتبنا سؤال أمر الوصي إن شاء الله.